سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داودياشا قيمها يا شرفت مدن وعالم كمير والبو أتكجوكتان يحل والبو أي إدي تهيبا وقتها هيدي وعناضو ويهنا هيدي سماضو ولكن عبد الوهاب أيد الله مالين كلا يموقال هرله aad baad ugu mahadsantihiin sida qiimaha badan ee aad inoo la socotaan ama aad inoo garab taagantihiin oo aad channelka ugu xirantiin waan idinkaga mahadcelinayaa inta dib inooga soo biirtay aad bay u mahadsan yihiin fadhiyo weynta sariicaad dadka ku dhow lahaanshaha channelkana waxa ay mahadsan yihiin in ka badan oo ka badan in aan la malaysan karin inta soo socota waynu soo dhaweyn doonaa inta aan nala daawato oo aan ka mid ahayn channelkan waxaan leenahay waa mahadsantihiin idinka xitaa aad baad u mahadsantihiin maanta muuqaalkani waxaan ku soo qaadan doonaa guurkii dhacay meherkii dhacay hadalhayn ayaa soo baxday hadalhayn aad u weyn ayaa taagan dadyooga qaar dardaaran fiican ayay siinayaan dadyooga qaarna dardaaran xun ayay siinayaan oo macnaheedu way ka hor imaanayaan oo dardaaranka ay bixinayaan waa dardaaran ila colaadeed wata marka inta wanaagsan waynu qaadan doonaa inta kalena waynu ku dagi doonaa waxa jirtay Igraan Caraale waa fanaanad waa taqaanaan magaceeda u sheegitaan idinka kama baahno waxaan rabaa Igraan Caraale markii arooska ay dhex taagneed hadallada qiimaha badan ee dardaaran ahaan u siisay walaasheen maxaa lahaa boqorada isteelka inaan soo wada daawano kadibna qof kale ayaa idinkaga dambeeyay doona emolbo marka ugu horeysa muuqaalka daawasho waxaan hambalyeeynaa walaashay oo anagu hooyo iyo aabbo u nahay hadda xagga banka noqoto waxaan leeyahay hambalyo adiga iyo xigaaga baby girl idinkana aad baad mahadsantihiin gabadheena waan jecelnahay jacayl darteed baan ugu soo marnay marka xafladeena ka xumayn si qurux badan u raaxaysta anagna waan idin raaxaynaa sidaad soo wada aragteen dardaaran qiimo badan marka hore hooyo ayaan u haynayay tiri waa sax waxa looga baahan yahay oo runtii boqorada isteelka looga baahan yahay arrin dhow ma ahan arrinka mar hadduu guur yahay wuu ka fog yahay haddaba dadyo badan oo dhaleeceynaya ayaan idiin hayaa hadalkoodii waan dib ayaan u dhigan doonaa oo aan xagga dambe ayaan ka dhigan doonaa laakiin dadka sida quruxda badan ula taliyay waxaa ka mid ahayd gabar aad ii soo jeedatay iyadana oo hadalka ay sheegayso si fiican u dhuuxa waa hadal aan boqolkiiba boqol halkan kaga dardaarmo dadka isguursada oo gurigooda yeesha hadalka dardaarankayga ayay si toos ah iigu waafaqday iyadana ay kula dardaarmi doontaa bal marka ugu horeysa iyadana muuqaalkeeda daawasho wacan وريال الصومالية يسبح ونعكس صورت مربو حويد سامحاه وسوق هذا شبك وسكول قوال هو بدأ لحد الصبح نمان ضوي فيديوك وانا حالة دقدقة الصومالية وحنا ركي الله بليني بقرة تستركي انكي وحنا لنا هم بلي سكوار ولي عام قبل عام وحنا لنا نجحيل كينا رايكم مدوغا جحيل السوشيال ميديا اكشر وابو كوبلا من السوشيال ميديا رايكم مدوغا انت مركا لقا يبادو حاركي تصفر بضل oo hambalyeynaya shalay toolana markii diyaarad u soo raacday halkayso ku dhiga hadlayoo lahaa heerkan waxaynu maraynaa ajaanibta dhaqankooda diyaarad la soo raacin inaan ku qadan loo yimaado maantana waxay leeyihiin kudhagidaha xayaa ku dhaada soo jeclay sidaad kush tilmaamsanaa dhaqanka ka luntay ilaa arrinta sheegay كل انت لاقنا حواشن كنور دقن كي بالو قرتن كي من meesha taxalkay kalkaca ka sidaad soo aragteen waa dhab social media qayliye idinkaga imaan marka la dhahayo oo la idin sheegay waxa laga wadaa waxa inta badan aragnaa in la isfuro la isqabo maalmii ugu horeyso meesha laga soo qurux badnaado si fiican la isku soo wadwato maalmahaas wixii ka dambeeyana dagaal ay bilaabdaan runtii waa iska marxaladaha social media marka lagu bato ama jaceylka la leeyimaado xagga social media waxaanu leenahay waxaad ku dadaashaan jaceylkiina inaad idinka isqancisaan idinka labadiina qof ay isqabo ayaa la idinkaga baahan yahay inaad isqancisaan muhiim ma aha bil aadamka kale inaad qancisaan horta bil aadamna qanci maayaan waxa yaabaha igu yaabka badnaa ee inta aan daawanay arkay ayaa waxa ay ahayd gabar dhan oo boqorada isteelka kula dardaarmaysa oo kule raani ma la masraaniye waa TikTok caan ka tahay qof walba qaarkiin inay yaqaanaan laga yaabaa waa gabar inta badan marka hore fiicnayn markii dambana tiri waan soo toobad keeno oo soo fiicnaado Yurub meelahaas ay joogtaa
gabadhaas waxa ay runtii kula dardaarmaysaa waxay leedahay cambuulaha siinin ninkaaga saan ha yeelin muqmad ayaa laga yaqaanaa meesha iyo waxyaabo badan oo lamid ah waxaan idin sheegayaa dadka markay isguursadaan sida ay u dhaqmi lahaayeen dhaqankoodii guud mooyaane dhaqankooda gaarka ay waxyaabaha ay cuntadooda iyo waxyaabahooda kale iyaga ayaa yaqaano waxaa laga yaabaa naagtaada inaad raalli ugu noqotid wax aadan cuni lahayn markii aad gurigiina joogtid iyadana booskeeda waxaa laga yaabaa nolol aysan qaadan lahayn markii ay gurigooda joogto inay ku qaadato ninkeeda taa waa nolol gaar ah iyaga ayay gaar u tahay waxa ay ku qancaan ama ay ku faraxsan yihiin ayay ku wada noolaanayaan laakiin waxyaabaha ugu badan ee annaga naanfacayo oo annaga nologa baahan yahay inaan kala dardaarano waxa ay tahay number 1 social media number 1 social media balaaye ka weyn kama dhacdo adduunka ma qabsato dadkeena Soomaalida social media dhibaato ka badan dhibaatada ugu badan ee number 1 ka ah ee guryaha Soomaalida u baaba'an waa social media waa inay isku fahmi waayaan oo ninka markii uu guursado gabadhiisa dhaho ka bax social media ee iyadana diido dhibaatada ugu weyn waa ka ama inay isfahan kale oo xaggan kale ka yimaado ay ku qasabto kaale anigu ila fariiso oo wax ila sameey markaasna uu diido halkaasi uu guri ka baabaa ama ka qurux badnaada anu laakiin taa ka hadlayno taas waa mid iyaga u gaara iyaga ayaa xalsan karo tan guud ee aan ka hadlayno oo aan doonayno in xal ay u helaan waxa ay tahay jacaylka ay isku qabaan ama ay nafadooda ay qabaan inaysan social media ka dhigin sida daraamo oo kaleeto inay waxyaabaha ay duubanayaan si normal ah ay u duubtaan waxyaabaha ay rabaan inay qabsadaan inay si normal u qabsadaan laakiin jaceelkoodii iyo isfarxad gelintoodii iyo howlahoodii kale inay xagaan mid kale waxaad arkaysaa qaar ilaa iyo hurdadoodii ilaa iyo gogoshoodii ilaa iyo dharka ee markaas habeenkaas ku seexanayso soo duubayo waxba kaama maqno kulankaasi dhacay habeenkaas adoo sii ogaanaysaa qurux ma aha saas social media waxyaabo ku fiicanna ma aha waxaan way duubmayaan waa ayna ku record gareysmayaan oo waa ay ku yaalayaan marka taasi yeena dhicin wixii qaas waay hala kala saaro nolosha isma saarna hala kala saaro shay waxa kale oo maqlaayay in boqorada istaylka ciwaankeedii hawada uu ka maqnaa habeenkii ay arooska galaysay kolley raadiyay ani arki waayo kolley ma ani kaliya mase dadka kale ta dhan way wada arkaan ma ogi waxaan rajaynayaa xitaa hadii ay dhacdo inuu u soo noqdo sababtoo ah waxa ay ku sugan tahay xilli farxad leh waxa ay ku sugan tahay xilli qurux badan oo runtii ay ku raaxaysanayso nolosha marka ma qurux badno in nolosha laga waalo ma qurux badno in nolosha looga ciyaaro sidaas darteed waxaan rajaynayaa in ay sidooda hore ay wax ugu soo noqdaan oo farxadeeda ay hesho taaniin shay maanta waa marwo nin qabo inta xumaha wado ilaahay ka yaaba ka dhamaada sababta ugu dhamaanaysaana sabab kale maaha maanta waa marwo caayda caydid saameyn badan ay leedahay shalay kaligeed markay ahayd kaligeed ku jawaabaysay oo ku soo fariisanaysay laakiin maanta haday jawaabtan waa ceeb oo marwo weeyana leeyahay maxaa waalay marka sidaas darteed in laga xishooda fiican waxay dooratay iyada ayaa dooratay shakhsiyadeeda gaarka anaga nama saameynayso tayada guudna kulli waxa ay ku dhimi kartaa malaha waxa ay shalay ku soo dhintay hadii aad tihiin xitaa qaar rajo laha rag qaar ayaa arkayay hadii aad ka mid tihiin dadka rajada laha ama rajada doonayay in ay boqorada istaylka waqti iyo nolol qaataan soo dhamaatay soo afjarantay noloshaasi waa ay tagtay marka waxaad isku daydaan boqolaal kale oo faadi ayaa jiraan oo madax banaan oo runtii iyaga dhuumasho ku jiraan oo gidaarada madax ka soo taaganayo kuwaas ay leedihiin kuwaas uun ku qabsada kuwaas uun idin hor dhaafin hadhow meeshaad ka cali lahayn waxay Soomaali ku mahmaadaa daahana hortii dafana joogo hadii aad adigu aad baqdin gashid mid aanan baqaynin ayaa soo baxayo mid aanan cabsanaynin oo horay u galay shaqada ayaa soo baxayo mid kale tana dad badan waxa arkay dhahayo uur ayay leedahay taas iyada ayay anfacaysaa haduu isaga raali kaga yahay culeyskan adigu saaray iska daji nafisna iska noqo walaashan u hambaliyay walaalkan u hambaliyay muhiimadu waa taas aad baad u maasantiin waxa idin la taa afkaartiina mid iyo labo xagga commentiga ayaad noogu reebi doontaan muuqaalka la gareeyo siina share gareeyo inta mid xiga ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa nolol wacan